بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرضي كسو دواد درس عصب وكمد دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها قاراهان جسك كوبات، وحن هلكا كقود قلينا إن شاء الله تعالى ما أنتي درسك طبني الشنات. الدرس الخامس عشر، درسك طبني الشنات وحن كبردونا ضمائر المخاطب، ضمائرta loo isticmaalo mukhaadab oo laba nooc noqon doonto: muttasil iyo munfasil. ضمائر loo yaqaano muttasil oo caamilkooda la xiriiro, iyo ضمائر loo yaqaano munfasil oo caamilkooda ka soocan. labadaasaan u kala qaadi doonaa. labaduna mukhaadab bay isku yihiin. ayagoo muttasila waxaa ka mid ah kitaabuka, qalamuka. kuwaas waxaa loo yaqaanaa muttasil, caamilkoodii ay la xiriiraan. munfasilkane waxaa weeyaan anta, anti, antuma, antum, antunna. kuwayogaasna waxaa loo yaqaanaa munfasil, kuwa caamilkii ka soocano yacni si gaar ah u istaagi kara. kuwana waa muttasil sida kitaabuka iyo qalamuka, qalamukunna. kuwayogaasna waxaa loo yaqaanaa muttasil baa loo yaqaanaa. kuwayogaasi marka iyo tusaalooyin ku saabsan ayaan dersiga ku arki doonaa. sidoo kale dersiga wuxuu ku saabsanaa doonaa qablu iyo bacdu. qablu iyo bacdu waxay laazimaan idaafo. isimka ka dambeeya waa la hoos dhigayaa, waana mudaafu ilayhi, sida qabla dersi oo kale, cashirka ka hor iyo bacda dersi. inta badan sidaa bay laazimaan. mararka qaarkood waa dhacdaa idaafada in laga gooyo, lillahi al-amru min qablu wa min bacdu oo kale, laakiin sida badan waxay laazimaan idaafada. dersiga marka intaasaa ugu muhiimsan. haddii aad danaynayso duruustii aanu soo qaadanay dersigii koobaad ilaa dersiga 15aad, waxaad ka heli kartaa janalkan insha allahu tacaala. haddii aad nagu cusub tahana waxaan ka codsanaynaa inaad like noo saarto muuqaalka, aadna sii shaargarayso, aadna nagu soo biirto subscribe aad saarato janalkan, sidii macluumaadka aan soo gelin ay ku soo gaaraan. aad iyo aad aa umahadsan tahay. addarsu alkhamis cashara, dersiga 15aad, waxaa sheekaysanayo alfatayaat iyo zaynab baa sheekaysanayo. alfatayaat waa gabdho dhalinyaro ah. waxay dhaheen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. zaynab waxay dhahday wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. man antunna yaa akhawaat, walaalayaal yaa tihiin. ixdaahunna, gabdhaha dhalinyarada mid ka mid a baa waxay dhahday naxnu banaatu shaykhi cabbaas, waxaanu nahay gabdhihii sheekh cabbaas. zaynab waxay tidhi ahlan wasahlan wa marxaban, soo dhowaada. ummukunna ustaadatii, hooyadiin waa macallimadeyda. kayfa xaaluhaa, sidee tahay. ixdaahunna, gabdhaha mid ka mid ah ayaa waxay dhahday hiya bikhayrin walxamdu lilaah, khayr ayay ku sugan tahay hooyo, ilaah ayaana mahad iska leh. ayna hiya al'aana, zaynab su-aashaasay weydiisay, iminka halkee ku sugan tahay. ixdaahunna, gabdhaha mid ka mid ahaa waxay dhahday hiya al'aana fi riyaad, waxay ku sugan tahay riyaad. zaynab baa waxay dhahday mataa dahabat, goormay aaday. ixdaahunna, gabdhaha mid ka mid a baa waxay dhahday dahabad, waxay aaday riyaad, waxay aaday qabla usbuucin, usbuuc ka hor. qablada iminka aan tilmaamayna waa tana, qabla usbuucin, isbuuc ka hor ayay aaday. zaynab waxay dhahday man dahaba macaha, yaa raacay. ixdaahunna, mid ka mid a gabdhihii dhalinyarada ahaa wuxuu dhahay dahaba macaha, waxaa raacay akhuunaa ibraahiimu, walaalkayn ibraahim ayaa raacay. zaynab waxay dhahday kayfa xaalukunna, xaalkiinnu waa sidee. ixdaahunna, gabdhaha mid ka mid a baa waxay dhahday naxnu bikhayrin walxamdu lilaah, annagu khayr ayaan ku sugannahay, ilaah ayaana mahad iska leh. zaynab waxay dhahday fii ayi madrasatin antunna, dugsigee ayaad adinku maraysaan. ma dugsi dhexe, ma dugsi sare, ma dugsi hoose. ixdaahunna, gabdhaha mid ka mid a waxay dhahday naxnu fi lmadrasati almutawassida,
waxaan dhiganaa dugsi dhexe. Zaynab waxay dhahday mata ikhtibaarukunna, imtixaankiinu waa goorma. Ixdaahunna gabdhaha mid ka mid a baa waxay dhahday ikhtibaarunaa bacda shahrin, imtixaankaynu waa bil kadib. Zaynab waxay dhahday adahabtunna ila almadrasati alyawm, maanta madrasada ma aadeen. Ixdaahunna gabdhihii mid ka mid a baa waxay dhahday nacam haa, dahabnaa waan aadnay, wa rajacnaa waana soo laabannay. qaybta layliska marka aan gudagalno. tamaariin. qaybta koowaad ee tamaariinka, ajib ka jawaab can ilas'ilati alaatiya, su'aalaha soo socda. su'aasha koobaad, man antunna, yaa tihiin waaye macnuhu. man antunna. naxnu banaatu shaykhi ciisa, waxaanu nahay gabdhihii sheekh ciise. marka waxaad doontaad adiga ku jawaabi kartaa. man antunna kolkii lagu dhaho kulley jawaab oo munaasaba unbaad ku jawaabi kartaa. su'aasha labaad, ayna ummukunna, hooyadiinna halkay ku sugan tahay. ummunaa waxaan leenahay fi riyaad oo kale masalan. ummunaa fi soomaal, halkay markaasi hooyo ku sugan tahay ayaad raacinaysaa. ummunaa baad ka bilaabaysaa, kadibna halkay ku sugan tahay raacsi. 3, ayna baytukunna, gurigiinna halkay ku yaala. waa ka baytunaa, marka hore ku bilow. baytunaa gurigeynu wuxuu ku yaalaa halkaasuu ku yaalaa raacsi. marka baytunaa qariibun min almasjid oo kale masalan. marka meesha uu gurigu ku yaalo unbaad markaasi sheegaysaa. marka 4, ayna ikhwaanukunna, walaalihiinna aawen. waa ka waxaa leedahay marka ikhwaanunaa fi soomaal oo kale, halkay ku sugan yihiin. fi soomaal ayay ku sugan yihiin. 5, ayna madrasatukunna, madrasadiinnu halkay ku taalaa. madrasatunaa waa ka fi xayi wardhigley oo kale masalan. fi xayi yaakshid, fi xayi hodan. marka meeshay ku sugan tahay ayaad raacsiinaysaa madrasadaadu. 6, adahabtunna ila almadrasati alyawm, madrasada ma aadeen maantay. nacam dahabnaa wa rajacnaa, waan aadnay waana ka soo laabanay. tamriinka labaad, annis almubtada'a, mubtadaha waxaa lagu dhahay dhidig ka dhig fi kullin min aljumali alaatiya, oo ku jiro jumladaha soo socdo idil. mubtadaha waa yani midka lagu bilowday jumlada, marka waxaad ka dhigaysaa dhidig ka dhig, waana damaa'irtii mukhaadabka ahaa. tusaalahan adigoo raacayo. misaal tusaale, a antum dullaabun, arday miyaa tihiin. haddii marka a antumtaan laga dhigo dhidig, waxay isku bedelaysaa a antunna. a antunna kolkaan bedelnane dullaabna waan bedelaynaaho waxaan ka dhigaynaa taalibaat. waxaa noo soo baxaya marka a antunna taalibaatun, ma waxaad tihiin arday. ardadu marka dhidigay isku bedelayaan. damiirkaanina jamaca dhidigaab ha loo isticmaalaa. mumtaaz. 1, a antum mudarrisuuna, ma waxaad tihiin macallimiin. a antunna mudarrisaatun, ma waxaad tihiin gabdha macallimaad ah. 2, a antum atibbaa'u, ma waxaad tihiin dhaqaatiir. a antunna tabiibaatun. 3, a antum ikhwatu xaamidin, ma waxaad tihiin xaamid walaalihiis. waxay noqonaysaa a antunna akhawaatu xaamidin. 4, a antum muslimuuna, ma waxaad tihiin muslimiin. a antunna muslimaatun ayay noqonaysaa. 5, a antum acmaamu maxmuudin, maxmuud adeeradii miyaa tihiin. a antunna cammaatu maxmuudin. 6, a antum abnaa'u lmudiiri, maamulaha wiilashiisa miyaa tihiin. a antunna banaatu lmudiiri ayaa noo soo baxayso, maamulaha gabdhihiisa miyaa tihiin. 7, a antum aabaa'u tullaabi, ardayda aabbayaashood miyaa tihiin. waxay noqonaysaa a antunna ummahaatu tullaabi, ardayda hooyayaalkood miyaa tihiin ayay noqonaysaa. tamriinka 3aad, xawili damiira, damiirka bedel oo fi kullin min aljumali alaatiya, oo ku dhex jiro jumladaha soo socdo idil. waxaadna u bedeshaa
كما هو موضح في المثال sida tusaalaha kugu cad u bedel tusaalahanaad marka waxaad ka shidaal qaadanaysaa tusaalahan sida looga shaqeeyey unbaad kuwaana uga shaqaynaysaa la soco marka tusaalaha mithaal tusaale ayna baytukum yaa ikhwaan walaalayaal gurigiina halkee ku yaalaa ayna baytukunna yaa akhawaat waxay ahaayeen lab dhidig unbaa loo bedela marka ayna baytukunna yaa akhawaat ayna akhuukum yaa ikhwaan walaalkiina aaway walaalayaal waxay noqonaysaa marka ayna akhuukunna yaa akhawaat waka ayna akhuukunna baytukunna akhuukunna waka yaa ikhwaan yaa akhawaat isku bedele marka labo ayna madrasatukum yaa ikhwaan ayna madrasatukunna yaa akhawaat mata ikhtibaarukum yaa ikhwaan waa goorme imtixaankiinu walaalayaal mata ikhtibaarukunna yaa akhawaat ahaadaa cammukum yaa ikhwaan kani ma adeerkiinba walaalayaal waxay noqonaysaa ahaadaa cammukunna yaa akhawaat kani ma adeerkiinba walaalayaal marka maxaa isbedelayo cammukum damiirka ku jiro unbaad bedelaysaa cammukunna yaa ikhwaane yaa akhawaat ayay noqonaysaa shan abaytukum qariibun yaa ikhwaan gurigiinu ma dhow yahay walaalayaal abaytukunna qariibun yaa akhawaat lix في أي شهر اختباركم يا إخوان في أي شهر اختباركن يا أخوات أي نغنيسة تمرين كأفراد ضع في الأماكن الخالية فيما يلي waxaad dhigtaa meelaha bannaan ee soo socda damiiran munaasiban damiir munaasaba dhig oo lilmukhaadab oo mukhaadab loo isticmaalo weliba midka munaasabka noqon karaa lagu sii cadeeyo waxaa lagu dhahay anta antum anti antunna intaa midka dooro marka adigoo munaasabada ilaalinayo anta mufradka u isticmaal oo labka ah antumna jamaca labka ah antina mufradka oo dhidiga ah gabadha halka gabadha loo isticmaalaa antunana waa jamaca dhidiga ah waaxid a muslimun waxaan leenahay muslimku waa labe a anta muslimun muslim yaa tahay a mariidatun a anti mariidatun a tabiibaatun a antunna tabiibaatun dhaqaatiir miyaa tihiin a tujaarun a antum tujaarun tujaar miyaa tihiin a bintulmudaris a anti bintulmudarisi a akhawaatu cabbaasin a antunna akhawaatu cabbaasin a tullaabun a antum tullaabun arday miyaa tihiin mumtaaz tamriinka shanaad damaa'irtaasi waa ka soo baxna marka waxay ahaayeen munfasil anta iyo anti iyo damiir oo yacni gaar u istaagay ahaayeen kuwaan marka mutasila la yidhaahdaa waxay la xiriirsadaan amba isim amba ficil amba xaraf ay la xiriirsadaan iminka marka tusaalooyinkan waa ayagoo la xiriiro isim shan dac fi lamkinati alkhaaliya meelaha bannaan waxaad dhigtaa fi ljumal ilaatiya jumladaha soo socda ka mid ah damiiran muttasilan damiir oo muttasila oo caamilkiisa la xiriiro oo lilmukhaadabe mukhaadab loo isticmaalo kaafu lkhitaab ka kum ki kunna waa ka kuwayowgan waa marka kuwayowgan marka ayaga hadal laguma bilaabo karo oo ka dhaalimun oo kale lama dhihi karo waa ka waxay uga duwan yihiin kuwa munfasilka ah sidaabay uga duwan yihiinoo kuwa munfasilka anta rajuluna la dhihi karaa saalixun nin wanaagsanaa tahay laakiin ka hadal laguma bilaabo karo waayahay ka marka anta ayay markaasi isku macno yihiinoo waxa weeyaan labkaa loo isticmaalaa kumna jamaca oo labkaa waay ki waa dhidiga halka gabaroo dhidiga ah kunnane waa jamaca dhidiga ah waaxid ayna baytu haye waxaad fiirinaysaa midka
loo naadinayo munaadaha kadib waa ka yaadaasaa xarfunida la yidhahdaa waxa ka dambeeyana munaadaa loo yaqaanaa marka wax loo naadinayo iska fiiri damiirku ilaa wax loo naadinayo unbuu ku wajahan yahay yaa ikhwaan ikhwaanku waa lab marka maxaan leenahay ayna baytukum yaa ikhwaan gurigiina halkay ku yaallaa walaalayaal ahaadaa kitaabuka yaa xaamid xaamidow kani ma kitaabkaadiba 3 saacatuka maxaan leenaha mise ki waxaa ku xukumayo midka loo naadinayo yaa layla layla loo naadinaya marka maxaan leenahay saacatuki jamiilatun yaa layla saacadaadu way qurxoon tahay layloy 4 man abuukunna yaa akhawaat abihiinu yuu yahay walaalayaal man abuukunna yaa akhawaat ayay noqonaysaa 5 masmuka yaa akhi magacaa walaalkayow 6 masmuki yaa ukhti magacaa walaashay 7 aummuki fi lbeyt hooyadaa ma gurigay ku sugan tahay tanoo kale hadda maadaama aanan wax loo naadirayo meesha oolin waa sidaa doontaad aad ka dhigi kartaa aummuka aummuki waa ka 8 maa asmaa'u yaa ikhwaan aa lagu dhaha maa asmaa'ukum dhe marka magacyadiinu maxay yihiin yaa ikhwaan walaalayaal tamriinka 6aad waxaa lagu dhahay dac fi lamaakin alkhaaliya meelaha bannaan waxaad dhigtaa oo fii maa yali waxa la xiriira ka mid ah damiiran munaasaban damiir munaasaba dhig oo lilmutakalimi mutakalim loo isticmaalo ana iyo naxnu waa damaa'ir mutakalima lab iyo dhidigba way isticmaalaan way ka midaysan yihiin dhidiguna wuxuu leeyahay ana labkuna anuu leeyahay jamaca oo labka iyo jamaca dhidigana naxnu way isticmaalaan 1 ana muslimun anigu waxaan ahaa muslim 2 naxnu muslimuuna muslimiinaanu nah 3 ana muslimatun gabar muslimada baan ah 4 naxnu muslimaatun gabdha muslimaada baan ah 5 naxnu banaatu lmudiiri maamulaha gabdhihiisii baanu nah 6 ana bnu lmudarisi macalinka inankiisii baan ah 7 naxnu طulaabun arday ayaanu nahay 8 ana mariidatun gabar xanuunsan ayaanu ahay bay noqonaysaa tamriinka 7aad iqra aqriyaa lagu dhahay waktub qor 1 dahaba abii ila alqaahira qabla usbuuc qabla iyo bacdiyaa lagu barayaa qabla inay idaafo laasimtaa lagu tusinaya marka dahaba abii aabahay wuxuu aaday ila alqaahirati qaahiro qabla usbuucin usbuuc ka hor 2 mataa kharajta min alfasli yaa muxamed muxamedow goormee fasalka ka baxday kharajtu bacda darsi cashirka kadib ayaan ka baxay 3 dahabtu ila almasjidi qabla aladaani masjidka ayaan aaday adinka ka hor 4 mataa dahaba camuka ila ariyaad adeerkaa goormee uu aaday riyaad yaa aaminatu aaminoy dahaba wuxuu aaday qabla shahrin bil ka hor 5 aqabla asalaati dahabta ila almطcami ma salaada ka hor baad aaday maqaayadda laa maya dahabtu waxaan aaday bacda asalaati salaada kadib waa ka halkaa marka waxaa lagugu tusinayaa ficilka maadiga oo lala xiriirinayo damaa'irta mutasilka ah gaar ahaan taa'ul faacil kolka lala xiriirinayo marka waxaan u kala qaadaynaa markii labka loo isticmaalayo iyo markii dhidiga oo ku wajahan yahay ayaan u kala qaadaynaa u fiirsa marka mufradka oo labka ah waxaan leenahay ayna dahabta yaa akhi mukhaadabkiina weeyaan ayna dahabta yaa akhi halkeed aaday walaalkayow jamaca maxaan leenahay ayna dahabtum yaa ikhwaan walaalayaal halkeed aadeen halka gabar waxaan leenahay ayna dahabti yaa ukhti walaashay halkeed aad jamaca dhidiga ahna waxaan leenahay ayna dahabtunna yaa akhawaati inteed aadeen walaalayaashayo kuwaa marka waa mukhaadabka marka waa ku kala dugan yihiin halka oo labka ah dahabta jamaca labka dahabtum jamac mufradada halka gabar
waxaan leenahay dahabti jamaca dhidiga dahabtunna waa ka way u kala duwan yihiin laakiin mutakalimka waa iska leeyihiin labaduba maxaa waaye lab iyo dhidig waxaan leenahay ana dahabtu gabadhiina waxay leedahay ana dahabtu wiilkiina wuxuu leeyahay ana dahabtu jamaca raggaa waxay leeyihiin naxnu dahabna jamaca dhidigaana naxnu dahabna intaa fahan marka الكلمات الجديدة كلماتها عصب وحاكمة قبل قبل بعد كيف متى الأسبوع الشهر الأذان الصلاة رجع اختبار وكا الضمائر المنفصلة ضمائر منفصل كلو يقال منفصل وحداد ركتوا قون واستاقوا سيجارة هذا الكالو بلا بكرة إلا كدبنا ويدعي كران وهي مفرد يجمع أكل قاعدين مرك مفرد كواكنا هو طالب أشجوا أرضي هي طالبة وأرضية أيده لبدا غائب له يقانا لبدا وحلو يقانا غائب وأنا مفردك جمع غائب كان في مرك هم طلاب أيجوا أرضي هن طالبات أيجوا أرضي مرك هن نوا جمع لديجه هم نوا جمع لبكه intaan marka maxaa waaye waxaa weeyaan ghaa'ib weeyaan haddaba marka bilowdo damiirku waa ghaa'ib shanay ahaayeen humaa baa kaa maqan bis humaa oo ghaa'ibka ku jirto oo laba tilmaamayso waa kaa humaa oo laba tilmaamayso unbaa marka kaa maqan marka ghaa'ibkii waa fahanay hal nin oo maqan waa huwa taalibun hal gabar oo maqan hiya taalibatun jamac ragahoo maqan hum dullaabun جمع دمر هو مغن هن طالبات لبا مغن هما طالبان ايغا مصنعان ku gaari doona intaana waxa la yiraahdaa dhahnay ghaib wax maqan bay ku saabsan yihiin imikana waxaan galeynaa mukhadab kuwa la hadlaayo mufradka waa kana anta talibun waxa tahay arday gabadha anti taada hoos dhig bis talibatun waxa tahay gabar yahay ardayad labadan waxay ka hadlayaan mufrad marka labadooda horta waa mukhadab laakiin mufradka wuxuu kala yahay midna waxa waaye mufrad oo hadii la ku idmaayo lab iyo mufrad oo dhidig weeyaan jamacna aan fiirina marka jamacna waxaan leenahay antum dullaabun waxaad tihiin arday waa labki jamaca dhidigaane antunna taalibatun saasaan leenahay marka waxaan noo soo haray marka antuma oo kaliya antuma ku darso waxaan haysanaa marka 10 ayaan saan ku haysanaa afartii hore waxaan ku soo darnay hal imika afartaana waxaan ku darnay hal marka waxay noqonayaan 5 iyo 5 10 haysanaa ana taalibun anigu waxaan ahay arday iyo ana taalibatun ana marka lab iyo dhidig boo isticmaalaan mufrad ayaan isticmaalo wiilku wuxuu leeyahay ana taalibun anigu waxaan ahay arday gabadhuna waxay leedahay ana taalibatun marka ana labaduba way isticmaali karaan jamaca kulkaan aadnane lab iyo dhidigba waa naxnu wiilashu waxay leeyihiin naxnu dullaabun arday ayaanu nahay gabdhuhuna waxay leeyihiin naxnu daalibaatun arday ayaanu nahay labadooda marka waxaan ka tirinaynaa oo naxnu iyo ana maadaama ay yihiin hal xaba haddaan ka soo qaadno labadoodaba 12 damaa'iraan haysanayna marka ilaa 10 hor u haysanay kolkaan kala qaadno oo aan qaybtaan u xisaabno labka qaybtaan dhidiga u xisaabnana 14 damaa'ir ay noo noqonayaan mumtaaz marka intaas inaad fahantida laga rabaa damaa'irtaas hadaad u sheeka barato waxa weeyaan wax badan aad fahantay saasa marka noo balaan insha Allah taala darsigeena halkaas uu ku eg yahay darsiga 16 baan soo gaarnay marka darsigeena halkaas uu ku eg yahay hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in